jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Koonfur Afrika Somali Community Board oo ay la socdaan mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee dalkan Koonfur Afrika ayaa booqday qoys wiil 14 jir Koonfur Afrikaan oo ay dhawaan ay toogteen ganacsato Soomaali ah. wasiirada amniga ee maamul goboleedka Gauteng Sizekela Imelda Nikosi Molombene kamid ahayd xubnihii booqday qoyska ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin sida niyadda furan ay u soo dhaweeyeen qoyska dhibanaha ee wiilka laga dilay isla markaasna ay ugu tacsiyeedeen. sidoo kale wasiirada ayaa sheegtay in ajaanibta aysan xilligan dib ugu soo laaban karin ganacsiga maadaama wili ay taalo tacsida ilaa iyo maalinta sabtida ah oo la aasi doono wiilka geeriyooday oo ay dileen Soomaalida waxayna xustay in wixii ka dambeeya maalinta Isniinta ay ganacsatada iyo ajaanibta dib ugu soo laaban doonaan goobihii ay ka barakaceen isla markaasna amaankooda la sugi doono. The Somalis Community Board will be able to work together with the family in making sure that the boy gets a decent funeral. We were fortunate that the family have welcomed the intervention that we have made as per the discussion that we had with them last week, Wednesday. We have indicated how we will assist, and we have all agreed that that is how they've made their plea to us to intervene. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Somali Community Board dalkan Koonfur Afrika Caamir Sheekh oo ka hadlay goobta ayaa u mahadceliyay sida wanaagga leh ee qoyska wiilka laga dilay ugu gudoomeen iyaga oo wax shuruuda ku xiran lacagta tacsida ay ugu tala galeen ka jaaliyad ahaan maadaama dadka dhibka geystay Soomaali ahaayeen. maanta waxaan joognaa guriga Sikiwe Makori dadkii dhalinyarada oo dhibka uu ka bilowday ee xaafadda Snake Park qoyskina wayna soo dhaweeyeen lacag waxaan u geynay loogu tala galay maaragtay xabaasha wayna la soo dhaweeyeen wayna qaateen. waxaan u sheegaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed sida wasiirka amniga gobolka ay sheegtay in aysan qaadanin tilaabo ay dib ugu noqonayaan ayagoon ka warqabin dawladda waa la celinayaa laakiin ha sugaan inta sabtida laga xabaalayo Sikiwe Makori xabaasha haddii ay dhamaatane waxaa dhici doona maalinta Isniinta ah kulan weyn oo loogu yeeray kansalaha dhammaan Soweto sida dib loogu celin lahaa. ugu dambeyntii Daniel Mahora oo ah aabaha dhalay wiilka Soomaalida ee dilkiisa sababta u noqotay ee Silviwe ayaa sheegay inay si niyad furan u soo dhaweynayaan wax walba oo xal ah kagana imaanaya jaaliyadda Soomaalida isla markaasna meesha looga saarayo xanuunkii soo gaaray isaga oo sheegay inay haatan qaateen tacsida iyo raaligelinta jaaliyadda ugu imaatay. waxa uuna baaq u diray Soomaalida iyo ajaanibta inay dib ugu soo laabtaan goobahooda ganacsi dhankoodana ay diyaar u yihiin inay amaan geliyaan oo ay dadka weerarada ka difaacaan. tan iyo markii ay shaqada bilaabatay ayaa waxa u taagnaa sidii xal looga heli lahaa dhibaatada. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida oo idaacadaha FM ee dalkan Koonfur Afrika kala hadlayay dadka madowga ee Koonfur Afrikaanka ee careysan si loo dejiyo xaaladda xalna looga gaaro dhibaatada taagan. Idris Abdi Hassan, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.